السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinkugu tala galnay maanta oo ah maalinimo Arbaca taariikhduna ay tahay 10ka bisha Luulyo sanadka 2024. haddaba barnaamijkan waa barnaamijkii ugu horeeyay barnaamijyada haddii alla idmo aynu maanta idiin soo gudbin doono. qodobo muhiima ayaynu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. haddaba barnaamijka waxyaabaha aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah video cusub oo goordhow laga baahiyay telefishinka Al Jazeera, sheeko cajiiba oo ka dhacday Tal El Hawa meesha la yiraahdo ee Gaza ka tirsan, sida loo galay ciidanka Israa'iil, taangiyada halkaa lagu dubtay iyo sida ay wax u dhaceen. haddaba waxaan idin hayaa videogaas oo aanu qaybta ziyaarada tagi doono oo aanu soo booqan doono, laakiin intaanan ziyaarada aadin waxaan idinkaga hayaa sharaxaad. markaad sharaxaadda daawato kadib ayaad si saaniya u daawan doontaa. qodobada kale ee barnaamijkaan idinkuga hayo waxaa ka mid ah Netanyahu wuxuu ka ballansan yahay 24ka bishan aynu ku jirno Juulaay ama Luulyo inuu khudbad ka jeediyo aqalka baarlamaanka Koongareeska waddanka Mareykanka. diyaaradiisu murana ka taagan, xafiiskiisii cabsi bay bilaabeen. waxay leeyihiin diyaaradda inay Tel Aviv ka kacdo oo ay toos Mareykanka u tagto waxaa ka wanaagsan inay Yurub ku hakato maadaama masaafadu ay aad u dheer tahay. laakiin Yurub teel isku aaminaa hala soo xiradii amayna saamaysaa. ka waran hawshaas halkaasay maraysaa. haddaba warbixin cajiiba oo sheekada laga diyaariyay iyana barnaamijkan idinkula wadaagi doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada qaraar ee ka soconaya Gaza. Al-Qassam oo war soo saartay, warbixino kale iyo wixii soo kordhana barnaamijka ayaan idinkula wadaagi doonaa. bushaaro dadweynow idinkuna bilkhayr dhaha. dugsiga Al-Anfaal online Quraan waxa uu kugu bushaarinayaa inuu qaadan doono fasallo cusub, waxaana ardayga wax lagu bari doonaa isagoo gurigaaga iyo goobtaada shaqo jooga. maadooyinka uu dugsigu bixiyo waxaa ka mid ah barashada higaada, akhriska iyo qoraalka Quraanka Kariimka ah, barashada salaada, barashada ducooyinka iyo barashada luqadda afka Soomaaliga. casharadu waxay ku baxaan aaladaha Skype-ka, WhatsApp-ka iyo Telegram-ka. wixii faahfaahin ah kala xidhiidh lambarada shaashada kaaga muuqda. dugsiga Ammaana Qur'aan online oo ay wax ka dhigayaan macallimiin aqoon xeel dheer u leh fidinta diinta Islaamka, ay waalidiinta qurbaha ku nool ugu bishaaraynayaan in sanad dugsiyeedka la qaadanayo arday kala duwan kuwaas oo kala jooga dhammaan daafaha dunida, isla markaana ubadka la barayo barashada Quraanka Kariimka ah, asaasiyaadka cilmiga shareecada Islaamka. haddaba waalid ubadkaaga uga faa'iidee fursadan qaaliga, qudhaaduna ka faa'iideyso dugsiga Ammaana Qur'aan online. faahfaahin dheer iyo kala xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda. ballanteenuna waa Ammaana Qur'aan online. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Suudaan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah, waxa uu kuugu bishaaraynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Rio Money Transfer.
ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Rio Money Transfer. wixii faahfaahin boqolaanta kuugu dhow ee IBS Bangi. kulanti wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii ugu horreeyay maanta oo Arbaca aan idiin soo gudbinayno. qodobka ugu horreeya barnaamijka wuxuu noqonayaa iyadoo qodobo aad u xiiso badanna ay wadada kusoo jiraan oo ay noo soo socdaan. muqaawamada Ciraaq ayaa goordhow war soo saartay. waxay leeyihiin weerar ayaan qaadnay maanta. dekad la yiraahdo Isduud ayaan weerarnay dhehen. Isduud marka weeraro badan laguma qaadi jirin. waxaa la weerari jiray Xeefa iyo midan Ilaad la leeyahay iyo dhulkaana nagta laga gelin jiray. maanta waxay dhaheen waa fogaanay dhehen maanta. dekadaas Isduud la leeyahay nagta kaga dekada Isduud marka aan idiin sheego. dekada Mareykanka ayaa isticmaalayay muddooyinkan. dekadii macmalka ahayd markii dabayluhu ku dhufteen waa meeshii alaabta uu la soo cararayay, waa meeshii waxaa dhan uu dhigayay, waa meesha maraakiibtu ay u joogeen. nimankii marka ciraaqiyiintu waxay leeyihiin ilaahay baa saakii nagu duway inaanu dekadaa aadno, waana kasoo adeeganay dheh, nagtaa kasoo gelin. khasaare lama sheegin, inkastoo iyagu ay yidhaahdeen waa ku guulaysanay dagaalka, meeshaan rabnay waa soo garaacnay, waxaana isticmaalnay dheheen diyaarado daroon ah. haddaba marka aan idin tuso warbixin kooban oo ay kooxda muqaawamada Ciraaq soo saareen. Al-Jazeera waxay tiri muqaawamada islaamiga ee Ciraaq waxay sheegeen maanta inay weerareen oo isticmaaleen diyaarado daroon ah dekada la yiraahdo Isduud ee ay Israa'iil xoogga horey uga qabsatay Falastiin. haddaba muqaawamada islaamiga ee Ciraaq waxay sheegeen inay weerar ku qaadeen diyaaradahaasi daroonka ayay ku weerareen dekada Isduud oo markaa ay sheegeen inay halkaa khasaaro u geysteen. weli tafaasiil lagama hayo, Israa'iilna lagama hayo, Mareykanna lagama hayo. dekadaha ugu waaweyn ugu mashquulka badan Israa'iil ay ka mid tahay. Isduuda waa meelaha kaliya usoo haray markii intii kale nagta sida looga gelinayo maraakiibtu ay kasoo cararayeen. Isduudiya looga daba yimid haddana. marka sheekadaasu halkaasaan kaga gudbaynaa. wixii warar ay kasoo kordha weerarkaas oo ay Mareykan iyo Israa'iil hadday jawaab ka bixiyaan waa arki doonaa. qodobka labaad ee barnaamijkeena aynu idinkugu faahfaahin doono wuxuu noqonayaa video ayaa waxaa soo daayay telefishinka Al-Jazeera goordhow ayuu soo daayay videogaas. marka videoga waxay ku sheegeen Al-Qassam ayaa soo duubtay, waa videoyadii caadiga ahaa. maalmahan oo dhan ilaa xalay barnaamijkii waxaan idin lahaa deegaan la yiraahdo Talil Hawa ayay taangiwatii khariidada xalay aan ku sheegay. intii daawatay way la socdaan. markii Shujaaciya nagta looga geliyay meeshii ay kasoo galeen Talil Hawa, taangiyada ay kasoo galeen Talil Hawadu dhanka xeebtay jirtaa. halkaasaa marka maalmahan markay galaanba nagta laga geliyay. videogeediyaa marka yimid Talil Hawa oo saacadihii lasoo dhaafay ayay leeyihiin wixii ka dhacay waaye. haddaba marka ugu horeysa aan idin tuso qoraal Al-Jazeera ay ka qortay. waxay leedahay muuqaal ayay heshay Al-Jazeera oo ku saabsan dagaalka qaraar ee ka socda deegaanka la yiraahdo Talil Hawa ee ka tirsan Gaza, kaasoo dhex maraya Kataa'ibul Qassam iyo ciidanka gumaystaha ee halkaa weerarka ku qaaday. marka waa arkaysaan Talil Hawada marka video wuxuu ka bilaabanaa wiilal ciyaalka xaafadda ah oo miinooyinkooda iska rakibanayo. midna uu hanjabayo Netanyahu wuxuu leeyahay haddaadan ka shalaayin weerarka aad ku soo qaaday halkan oo adigoo ooyaya ayna halkan ka bixin waa yaabi doontaan uu leeyahay. hanjabaada uu diraa cunuga yarkaa waa yaabaysaa. marka miinooyinkoodaasi rakibanayaan, waa dabinay dhiganayaan. dabinkii markay dhigtaan way ka baxayaan. nimankii oo soo galay taangiyadii iyo makiinadihii maaragtay cagafcagaftii waddaday banaynaysaa lalahay soo galayaan. markaasaa cirka waxaa isla aadaya qiiqa holaca uurada baxaysa oo yaabaysa. haddana videoga dhan kaloo inta nooga keena isla stabtii oo kale kuwa loo galayo nagta laga gelinayo. waxaa ugu daran allahu akbar aa lagu leeyahay. allahu akbar waxa qaylo ka dhacaa markii allahu akbar la yidhaha nimanku waaba wadnahaasi go-ayaa lagu leeyahay.
nimanka falastiiniyiinta qaara moogtahay commenti soo qoraayo waxay leeyihiin nimankanu allahu akbarta haddii loogu daro waa bas kii noolaa xataa inuu dhintaa loo qaatay leeyihiin cabsida iyo gariirka ku dhacayo waa yaabaysaan ilaahay awoodiisa kelmadaasu caadi ma ah allahu akbar haddii la yidhaahdo dhulkaa la wareegaa layiri meel laga jira ma yaqaano marka nimankaasu videogaasay soo daayeen waxaa kaloo videoga ku jira iyagoo dariishada laga tooganayo nagta laga gelinayo iyagoo socdo oo cararayo nagta laga gelinayo video cajiiba waaye marka waxaa booqanaynaa sida caadada noo ahayd qaybta linkiga ayaan soo dhigi doonaa commentiska halkaasaa maaragtay ziyaarada aada u tegi doontaan markaa soo ziyaaraysataanna fadlan soo noqda commentiska soo qora barnaamijkana like gareeya ha iloobinina waa tahay qodobkaas isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa waxaanu noo soo socdaa netanyahu safarkiisa iyo xafiiskiisa cabsida ka jirta diyaaradda netanyahu xaggee maraya markay maraykan u socoto xaggee ku degaya maraykanna wuxuu le war maxaa ka baqaysaan war meeshaan yurubtaani waxa kale anay gacantayda ku jiraane sidee waa baqdintaan maxay tawle maraykankiiya yaaban inta nimankan waxaa leeyahay rucbi iyo cabsi rabbaani aha nimankan ku jirta wax walbay ka baqayaan sheekadaas marka waa cajiib waa idin soo wadaa laakiin waxaan ku hormarinaynaa wararkii ugu dambeeyay ee dhacay saacadihii lasoo dhaafay gaza iyo muqaawamada wararkii ay soo saareen haddaba kataa'ibul qasaam waxay sheegeen inay fuliyeen weerar cusub oo ka dhacay talil hawa waxayna sheegeen inay weerarkaasi ay u geysteen ciidanka israa'iil qaar la dilay iyo qaar dhaawacmay kataa'ibul qasaam waxay leedahay waxaynu sameynay shirqool ciidanka israa'iil waxaana ka dilnay qaar kalena waa ka dhaawacnay waxaanu u dhignay miinooyin kuwa loogu talagalay askarta lugaynaysa deegaanka talil hawa oo ku yaala gaza haddaba mujaahidiinteennu waxay arkayeen oo ay halkaa kula kulmeen diyaarado helicopteris ah oo soo gurmaday oo markaa samaynaya inay daabulaan oo ay qaadaan dhaawacyada iyo kuwa ka dhintay ciidanka israa'iil markii kamiinka ama jidgooyada la yaab kale aanu ku samaynay hadda videogan ka hadlayna hawl kaluu ahaa maalmihii lasoo dhaaf shalay iyo duraad kan hadda waayo isagana kamiin waxaa la yidhahdaa jidgooyo inta loo dhigay miinooyin afraad loo sameeyey miinooyinka shakhsiyaadka ayaa inta loo rakibtay askartii iyagoo lugeynaya jalfis maa la dhihi jira soomaaliya waagii hore alkaasaa nagta laga dhigay dhagaha laga garaacay marka kan waa cusub yahay kan hadda aan ziyaarada u aadayna maa kana isaguna ziyaaradiis waa imaan doontaa nimanku de waa gacan kale xalay barnaamijkaygii ciddii daawatay barnaamijkii saddexaad ee xalay ugu dambeeyey barnaamijyadayda shalay qariidada waxaa ku dhahay wariyaha dhul waa laga quustay meeshaan taangigii galaa waa la gubaa askarigii galaa waa la dilaa midna waa la dhaawacaa cirkaasaa laga duqeeyaa uu yiri inaa fahamteena u malaynaa marka tiyaa socota hadda talil hawa saaki waa galay nagtaa laga geliyay videogana wuxuu ahaa talil hawa shujaaciya maba la aadi karaba horta nimankii wiifowga ama leexada saarnaa ayaa maalin walba suga meeshaas kii soo galaa nagtii ka geliyaan cajaa'ib waay meeshaas marka dhibaatadaasaa ka jirta qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena ugu horeeya maanta waxaynu ku faaqidaynaa oo wararka ugu waaweynayay saaran miidiyaha ka mid ah ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu 24 bishan aynu ku jirno juulaay ama luulyo ayuu wuxuu khudbad ka jeedin doonaa uu ka ballansan yahay aqalka koongareeska maraykanka inkastoo xildhibaanada aqalka sare ee aqalka koongareeska ay qaarkood diidan yihiin haddana inta ogol ayaa badan sidee doontaa ahaato markaa kasoo kacdo talaabiib oo aa u socoto maraykan waa inaa yurub soo dulmartid yurub inaad soo dulmarto marka waxaa la yaab kale waxay tahay israa'iishii aan ogeyn yurubtii aan ogeynoo macallinka weyn daacad u ahayd israa'iil oo adduunka oo dhan ixtiraam ka haysatay oo yurub oo dhan ay ka gaban jirtay ayaa hadda waxaa la leeyahay xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil wuxuu ka walwalsan yahay diyaaradda netanyahu cabsida ilaahay qalbigooda geliya arka wax kale lama dhihi karo waddamadan yurub oo israa'iil difaaca garab taagan wax walba sameeya
ayay israa'iil haddana ka shakisay xafiiskii marka waxaa leeyahay maxaa samaynaa markii hore marka waxaa la soo jeediyey waxaa la yidhi dalalka aan aad ka saaxiibka u nahay aan sii marsiino odaga intuu maraykan u socdo masaafada diyaaraddu way dheer tahay talaabiib ilaa washington aaday u dheer tahay marka xaggee la marsiin karaa czech republic fiiri ingiriis jarmal wixii oo dhan waa laga dhuumanaa waxaa leeyahy nimankani shuruucdooda iyo waxooda iyo intay rabaan isweyskaanaga war meeshaa macallinka weyn wuxuu leeya yaa ka baqaysaan adinka kaale cidda idinla hadli karta yaa waayo war ma waalantihiin nimankii dee cabsi ilaahay amarkiisaa jira czech republic maya hungary maya xaggee haddana markii ugu dambeysay waxay leeyihiin taqriirka waxaa ku qoran waxaanu ka fakarnay diyaaradeenu inay toos noqotoba odaga ha jactada hadduu rabo kuraasta ha ku daalo saacadahaas dheer min talaabiib ilaa washington hadhowna sidaasoo kale si aan odaga loo katiinadayn oon loo xirin war odagaan yaa xiraaye macallinka weyn wuxuu leeyahay cidda aniga iga kaabaysanoo meeshaan joogta hadda meeshaan wax koraa jira dadku wax falanqeeya waxay leeyihin cabsi ilaahay uu nimankanu ku ridaa jirtay leeyi mas-uul walaa askari waa la iska baqaa haddaba marka aan idin tuso sheeko la yaab leh oo aljaziira ay qortay aljaziira waxay tiri netanyahu ma wuxuu ka fogaanayaa inuu ku hakado yurub isagoo ka baqaya in la xiro fiiri ciwaanka laga dhigaya yaabaysaa haddana marka warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay waxay ka doodayaan mas-uuliyiinta xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu suuragalnimada in yurub uu odaga ku hakado inta uu ku guda jiro safarkiisa maraykanka uu u socdo laakiin waxaa laga baqayaa in odayga la xero haddii yurub meel ka mida uu ku hakado waxaana sidoo kale laga baqayaa codsigii dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee lahaay uu sheegay in netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga loo haysto dembiyo sidaa daraaddeedna ay tahay in lasoo qabto haddaba warkan aljaziira waxay leedahay waxaa faafinaysaba hay-adda rasmiga ee wararka u faafisa israa'iil maantoo arbaca ayay sii daysay haddaba arrintan marka way sii socotaa waxaa leeyahay si qaanuuni ah iyo sharciyada adduunka ka jira ayaa suuragal ka dhigi karaa in netanyahu ay qabtaan oo diyaaraddiisa ay xanibaan oo isaga laftirkiisa ay khatar u timaado laakiin hadda waxaa la sheegayaa inay ka fakarayaan in diyaarad toos ah la sameeyo ama in lagu hakiyo jamhuuriyadda czech iyo waddanka hungary labadaasoo ay israa'iil aad ugu kalsoon tahay saaxiib dhowna la ah meesha la maciin bidaayo czech republic iyo hungary iyadoo jarmal aad aragteen faransiis ingiriis wixii oo dhan dowladihii waaweynaa oo dhan ay joogaan ayaa xafiiskii netanyahu wuxuu ka fakaraa shuruucda iyo adduunka qawaaniintiisa nimanka kanu inay ka awood badisaa laga yaaba odaga la qabto see la yeelaa haddiiba meel lagu hakinayay kuleeyihiin waddan la yidhaha czech republic checoslovakia waddankii la dhihi jiray waagii sovietiga oo maaragtay hadda czech iyo slovakia u kala go-ay ayaa czech republic ama hungary waddanka la leeyahay labadaasaa xoogaa ugu kalsoonnahay fiiri marka waxaasu waxay leeyihiin dadka cabsidii ilaahay ayaa nimankanu cabsi kala haysa macallinka weyn isagiyaa yaaban wuxuu le war yaa ka baqaysaan maa jirta meeshaan wax ka awood badan bini aadamka nimankan qulubtooda lagu sii daayay ma la iska cafina ay leeyihiin qof maanta oo dhan xasuuq iska geysanaya oo dad iska laynaya oo ama rabbixinaya adduunka ku waxuu raba ku samaynaya adduunyadan dee dadkan yaa abuurtay ilaahay baa iskale dadkan qof bini aadana inuu ku takrifalo wuxuu raba ku sameeyo yaa ka yeelaa marka nimankan kanu mushkiladaasaa qabsataa leeyahay hadda marka wararkii ugu dambeeya waxaa leeyahay xafiisku waxay isku raacayaan weli iskuma raacin diyaaradooda in toos laga dhigo odaga toos in loo soo safriyo ha jactadee dheen hadduu rabo meesha ha ku daalo diyaaradda ilaa washington ilaa talaabiib ma joogsanayso hadhowna ma soo joogsanayso marka inta uu maraykan joogo 24ka kongareeskaas uu ka ballansanya khudbad ka jeedinaa madaxweynahana wuu arki doonaa biden kadibna waa soo laaban doonaa haddaba marka sheekadu halkaasay mareen cabsi halkaasay ka gaareen nimanka kan
waa wax cajiiba runtii fakarkiina aragtidiina noogu soo qora qaybta commentiska hana iloobinina maanta ziyaara jirta gaza ka timid oo aljazeera sii daysay hala soo ziyaarto fadlan barnaamijyadana hala like gareeyo yaan la iloobin barnaamijka like gareeya oo share gareeya haddaad nagala socoto Facebook iyo YouTube labadaba haddaad nagu cusub tahay subscribe-ka ka iloobi YouTube-ka Facebook-na follow garee inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno iyo saacadaha soo socda nabadgelyo